fatahaaddan webiga Shabeelle iyo roobabka isbiirsaday ayaa saameyn ku yeeshay wadooyinka soo gala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe xilli fatahaadii horle ee webiga Shabeelle uu ka geysanayo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe wadada laamiga ee isku xirta magaalada Muqdisho iyo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ee marta gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmooyinka Balcad Jowhar iyo Mahaday ayaa haatan ay maamulka Hirshabeelle ay tilmaameen in ay haatan wadadaasi ay go'day kadib markii biyaha webiga Shabeelle oo saameyn uu ku yeeshay gudoomiyaha xogeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Anab Axmed Ciise ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladda fatahaadda webiga Shabeelle baaqna ajeedisay oo ku aadan in gurmad lala soo gaaro dadka ay saameynta ay ku yeelatay fatahaadda webiga Shabeelle sheegtayna in ay haatan wadooyinka soo gala magaalada Jowhar ee haatan jareen biyaha webiga Shabeelle 90 kilomitir oo isku weer ah ayay biyahaas u gaarayaan maanta waxaan soo marnay waxa sheegay gudoomiyaha adinka ayaa arki doontaan heerka iyo cadadda ay biyahaas ay joogan adinka arki doontaan hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan baaq u diro dawladda federaalka ee Soomaaliya jaala madaxweyne waxaan ka codsanaynaa in aad aragto ummadda reer Hirshabeelle caasatan caasimada dawlad goboleedka Hirshabeelle oo shacabkii deganaa ilaa iyo inta ku xeeran Mahaday iyo Balcad inta ka dhaxaysa dadkii deganaa webiga in ay biyihii harqiyeen oo ay banaanka yaalaan waxaan jeclahay in aad u soo nixi doontaan ummadda reer Hirshabeelle ee biyuhu ay harqiyeen wadooyinka la soo dhaafay ee roobab iyo biyaha webiga Shabeelle oo isbiirsaday ee saameyn xoogan ku yeelanayeen wadooyinka soo gala magaalada Jowhar taasoo inta badan haatan la dareemayo in biyaha webiga Shabeelle ay sii kordhayaan goobaha ay gaarayaan gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanada hoos yimaada mana jirto ilaa haatan gurmad dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ka soo gaaray maamul goboleedka Hirshabeelle xilli haatan maamulka Hirshabeelle ay shaaca ka qaadeen in aysan wax ka qaban karin xaaladda fatahaadda webiga Shabeelle ee ka jirta gobolka Shabeellaha Dhexe محمد إبراهيم جمعال أموري هون كيبل TV جوهر.